السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما ندويتو وحين نسوق لي لايف دين على تليجرام كأه مركا لايف كي وان دوبي تقريبا وحين كوجرني لايف كي يمكن واحد كله ساعة يبرد لكن أنت يوم مسنيد أيام لايف كا إنه صار شرشري أو يوتيوب هان إنه قدقي وأنا أنت يوم مسن أيدتكو أي كفاية سنة يعني مركا هو الرئيس كوصلي النبي جينا حبيب كينا عليه أفضل الصلاة والسلام سيدو إلهي سبحانه وتعالى هو أمري يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أخيارتا شرفت بدن كحران سومالي كريبتوفوليو يؤرددينا يوددك مركز إن رسعدا إن شاء الله أخيارتا أنت أين فيديو قبلابين هداد نقول سبتين كنت دالا إنات بدنك سبسكرايب كا إنات سارتان أو آد كانالك كحرناتان قنبليل كانا كليكو سي أول سي وحكستان سميو ومركبا كوكو سورعو بدنك لايقانا كليكو سي سينا شرقري فيديوغا سي وقادو ميلو فربادن wixii comment ana insha Allah taala inagu soo qora ilaahay idin barkeeyo hadii inta aad sameysaan subscribe iyo like iyo share kanaalku aad buu kala kacayaa ana dhiirigelin bay ii tahay inaan videos fara badan oo qurux badan oo quality ah oo ummadda Soomaaliyeed ka faa'iideysato inaan markasta idin diyaariyo barakallahu fiikum arrin cajiib ah dhacday arrintaana walaalihii ku jiray live-ka mayga loo faray oo arday kala duwan iyo asxaab nasoo booqday ayaa mid kasta ra'yigiisa meesha ka dhiibay inkastoo codadka qaarkood mayga xogaa dhib ay ka jirtay dhinacooda oo codadkii si fiican u soo bixi waayeen oo aan ku dadaalay xitaa inaan kala safeeyo laakiin waa adkaatay laano mayga aan telefoonka kaga hadlayeen baa yaa qashqashaad iyo waxba ku yara dhex jiray waxa laga yaabaa inay fadhiyeen meel moogtahay yar buuqa marka codadka qaarkood oo soo gelin kari waayo habeen dhaweyto inaan dhalinyaro ah oo Soomaaliya oo wadamada Afrika jooga wadanka wadamada Afrika wuxuu ii soo diray page buu ii soo diray wuxuu yiri ustaadow lacagtaas ay ugu jirta account-ka Trust Wallet-ka coin baan geliyay $10 waxaan arkay coin-kii uu booday wuxuu u booday 200% marka masawiridda dad waan ayaa isku soo ururnay kulligood laano qisadana waxay socotay ilaa 2 ilaa 3 shay socotay waa ka daba tagnay markaan gudaha eegay coin-ka waxa la dhahaa BSC oo ku dul dhisan BNB Smart Chain coin-ka markaan baaray horta coin xaraana weey waa coin ku dhex jira waxyaalihi xaraan tahay oo dhan ku dhex jira وديفايدي وحنا كل حجرة طيب كوين كا مركان أركي سؤال سويدي ومحي وركوين كان أتوبك قشتي سديب وكوم موشيا إن سديد كن أدور كيسيتي طبعا إنكم موجين كوين كانوا حلال حراني هاي سديد كن $1 باكم مقطع سكرين كواركتان كاسن صور جاي كوين كعقايسته هل مليون سديد بقول يوديرات أو كل لما مليون واحد كله حوجا كدب أدو إنك لايف وسوق لني horta koykan waa xaraam baanri laguma ogol lacagta in isticmaashid diiniyan waa xaraam laakiin aan baadhno sababta lacagta meesha lagu soo dhigay waa eegnay haddii lacagtaas run tahay oo laga saari karo bal aynu ka saarno aynu eegno lacagtu markii horeysa waxay 8 kun bay aniga 8 bay 4 bay ahayd yes 4 kun bay ahayd lacag 4 kun ku jirtay 4 kun sababta loogu talagalay waa maxay coin kale ku jira isla catna waxa ku jira $14 okay waa garanay inankii waxaan lacagta ku jirta lacag xaraana lama ogola in la isticmaalo haddii ay dadkaas ugu talagaleen scam ama in ay uu coinkaas sax u kacay waa eegina khasaare maaha in la baaro oo waxaan dadka in cilmiga la siiyo weeyo 4,000 aynu ka soo saarno ma runba mise dadka lagu khiyaameynaya aniga shaki baa waxa iga jiri 4,000 haday soo baxdo oo qofkii gacantiisa ay gasho macnaha de something waxba jira meesha laakiin su'aasheenu waxa weeye war lacagtan maxaa meesha loogu soo shubay lacagta inagu ma rabno inuu qaadano oo lacag xaraana laakiin waxaan doonaynaa inaan ka daba shaqeyno nimankan scammerska xoogaa kadib lacagtii kor bay u kacday 4 bayad $8,000 bay noqotay xoogaa kadib waxay noqotay $10,000 haddaba waxaan niri war baashan aan eegno ma laga saari karaa mise maya mise meesha scam baa ku jira Trust Wallet cusub baan sameeyey waxaan niri Trust Wallet-kaaga aad isticmaashid ha gelinin daa'iman taa idinka waana iga tahay qofka Trust Wallet haysto Trust Wallet-kaaga taban coin-ka xalaala kugu jirta coin-ka yaryar qashinka coin-kan waa meme waa shit coin-kan waxaan iri coin-ka noocaas oo kala ka taxadara ha soo gelinina Trust Wallet-kiina waana absolute waa hadal sax weeye Trust Wallet cusub baan samaystay inanka waxaan ku iri swap waxaan samaystaa convert samee swap buu sameeyey gas baa laga goostay laana BNB baa ku jirta meesha BNB baa ku jirta gas baa laga goostay mobile yaro kale aan ku sameeyey Trust Wallet waxaan ku iri waxaad ii soo xawishaa $3 oo ku jirta qiimaha dhinaca ah wax la qiimaa $3 oo jajaba ii soo wareeji Trust Wallet-ka kale ku soo diray waxa tijaabo weeye Trust Wallet-kii buu ku soo diray
بي ام بي ahaan baan u bedelay بي ام بيgii way soo gashay oo gas fee ah anaa بي ام بي kusoo wareejiyay dhinaca gas fee ah aan ku check garayno inankii wuxuu ii soo diray $2 iyo 2.4 buu soo diray gas feedii way haystaan waa diyaar 3 swap baan sameeyey mar waxaan ku sameeyey bitcoin marna waxaan ku sameeyey USDT oo ku dul dhisan BNB smart chain marna waxaan ku dul sameeyey I think BNB adigu 3 baan sameeyey swap 3diiba wuu baaray wuu wareegaa blockchain-ka gudahan eegay daaqilka waan eegay 3dii waa fashilmeen wuxuu yiri waa error baa ka dhacay okay point ka waynu soo qabanay si loo soo bandhigo lagu soo bandhigo wax sax ah in waxaan khatarkiisu leeyahay ka taxadar Soomaaliya meel kasta gelinay okay coin-kii wuxuu noqday haddana 10,000 shalayto ayaa haddana loo qalay soo galo leeyahay ustaado coin-kii wuxuu marayaa 6,000 haddana uu soo daatay haddana wuxuu marayaa 2,000 haddana iminkadan akhritaankii coin-kii wuxuu marayaa $2 2.98 buu marayaa coin-kii qofka la yiri coin baad heshay $10,000 waxay ku dhashay $10,000 oo intii ugu sareysay gaadhay haddana account-kiisii trust wallet-kiisii waxaa ku jirta $2.98 coin-kii catna waa lagu ciyaaray isaga laftiisa wuxuu u booday 153 awal wuxuu ahaa 14 marka halka waxaa kaaga muuqanaya arrin aad u weyn baa kaaga muuqanaysa videogan marka aan duubayay live baan kula jiray walaalaha ku jira Somali Cryptofolio marka waxaan rabaa inaan weydiiyo dhalinyarada su'aal waa maxay sababta inankaa loogu khiyaameeyey ee la yiri $10,000 $10,000 bay ku dhashay iska dheh مثلا كون حلال waa مثلا iska dheh مثلا kan xaraam waa مثلا كون حلال waa qoynkii xalaashaha lacag yar baad gashatay ilaahay subxaanahu wa ta'aala waa ku fududeeyay wuxuu ku siiyay intaas kumayal buu ku noqday مثلا maxaad ugala soo bixi kari weyday coinka sababta aad coinka u sameyn kari weyday swap ama USDT ugu bedeli kari weyday ama bitcoin ugu bedeli kari weyday ee lagu diiday inaad bedeshid sababtu waa maxay aad uga madcelinayaa walaalaha dhamaantood inoo fasaxay codadkooda in la soo geliyo YouTube-ka waanigii weydiiyay markaynu ku jirnay live-ka in codadka hadii ay inoo fasaxayaan waana inoo fasaxeen alxamdulillah rabbil caalamiin mayga waxaan siinayaa walaalaha iminka live-ka inuu gala jira bal jawaab isiiya bal live-ka waan ku jiraa laakiin jawaab isiiya insha Allah Ustaad Axmed aad baan ku salaamay adiga iyo dhammaan akhyaarta sharafta leh ee ku jirta groupka markaan su'aasha isku dayo waxa weeyaan waxa loogu talagalay ninkan in waalidkiisa la helo si loo dhaco taasaan anigu isleeyahay way ahayd waxa loogu talagalay ninkan waalidkiisa la helo lacagta ku jirtana lagala wareego hadduu wax kale is yiraahdo maaragtay lacag kale meeshan gasho oo isku day inaad wax kale hesho intiisaana la dhaco marka sidaas ay ila tahay aniga ما شاء الله بارك الله فيك عبد الكريم هو بوينت ادو في عن الهي خيرك سيو وبوينت ادو في عن يا كلو كدريه بوينت كلا جرى اسمه يا كلو كدريه خواجه او اسغونا فكرديسا ku kordhiyay laakiin codkiisu waadax ma ahayn oo codku aad baa moogtay background-ka wax badan ay ka muuqdeen marka waa soo gelin kar waayay waxa jira kale asxaab kale oo yana ku jira grubada oo ma sha Allah iyaguna ay ra'yigooda dhiibay hal mid ku daraa waxa waaye liquidity ma laha ustaadu lacagtaas qiyaasaya bila liquidity waxaan iri lacag baa qofka loogu shubay $10 buu ku shubtay 10kii waxay noqotay 10,000 bay noqotay 10kaana ma bedeli karo swap ma samayn karo kana bixi karo su'aashu waa taasi walaalde yaa ku daraya Cabdilkariim point xasaasi u sheegay laakiin point kala jiro muhiima yaa garanaya ustaad ana ku daray haye meesha oo maartay liquidity-ga qofulka ma saarnan ana qofulku ma xirna saas darteed amaam ahan ninka inuu iska fiiriyo la reebo gas fee maxamed xaashi gas fee waa gas fee maxamed waa gas fee jawaabtu waxa keenay maxamed xaashi ma sha Allah oo yiri gas fee da ayaa la doonay inay qaataan laakiin maxamed xaashi codkiisu waadax ma ahayn inuu lacag uma jirin meesha lacag uma jirin laakiin mas'aladu waa gas fee da maxamed uu 3 jeer baan ku tijaabiyay wuxuu iga cunay $1 iyo barbu iga cunay inankan wuxuu ka cunay taqriiban $1 coinka inanka kaliya lama soo dirin coinka waxa loo soo diray kumayaal dad ah haddii qof kasta uu isiraado gas fee oo qof kasta uu $1 khasaaro haddii 1 milyan oo qof loo diro coinka meeshuu ku tuuro gas fee uu ka shareeyaa markasta ku tuur
كبح كتور كبح كتور كبح وحلاقي يا با إن ويك نكون وريتي أو ثاني ويديد أو $5 كاتكتو مثلا والله وريتي بيتكوين وريتي بيتكوين ما مشقينيو هذا جاس كله هذا إثيريوم هذا بوليجن هذا كسوع USDT وحلاقي يا با إن $5 كخسارتي $5 markaad ku khasaartid marka ay 1 milyan oo qof galaan qof kasta 5 ku khasaaro de shakada waxay noqonaysaa 5 milyan qofkii ka helay marka meesha waxa lagu tagay maxamed xaashtu sheegay gas fiiga si lagaga dhaco marka Soomaaliya taas way ku cusub tahay arrintan way ku cusub tahay arrintan ka taxadara arrinta gas fiiga iska maraa jira ku shaqeeya aynka anu ma aragtay Soomaalidu wali arrinta ma fahmin laakiin haday soo baxaan Soomaalida arrinta bartay ee yaqaana inay coin samaystaan وانا سيمبل كون سمين كرا توكن كان ان ميمز كان واحد كو سمين كرتا 5 دقيقه 5 minutes لكن way سيفر سمينayaan waxa lagu xidhayaa barnaamij yar boot batch arwa boot ya khayrta la socday boot batch lagu xidhayo boodkaasu wuxuu ku muujinayaa balkaas inuu yahay 1 milyan kalamana bixi kartid gas fiin oo ka qaadanaya waaba inta sheekadu marka waxaan jeclahay inaad deetaa fahanteen yaa la idin dhicin haddii lagu tuso coin kugu jira trust wallet-kaaga ay ku dhex jirto intaasoo $1,000 taa yaa la idin ku dhicin khayrta استاذ ما هذا كرا ها حسن سولو حياك السلام عليكم عليكم السلام سولو ولا سولو وانا استاذ انا waxaan ku soo koobay 3 qodob حياك الله تفضل يا حسن qodobka koowaad baalkan waa virus horta xalaalna maahan inkastoo hadana xalaal ahaan hadana waa virus markaad gelisid aad linkiga ama aad ku dhufatid application-kaada mobilkaada waxaan ku isticmaalaysaa dhan xogtii dhan ogaana marka taas waxay u sahlaysaa freeskaada waxa dhan inuu helo lacag wixii kugu jira oo kala bax qodobka labaadna waxa waaye qodobka labaad lacagta ku iibsanaysid asaa ka faa'iiday moogeeda wax faa'iidad ka helaysid ma lahan absolutely صح mid kale wuxuu kugu dhiirigelinaa lacagtan kor u socotaa marka aniga waxaad leedahay hamiya ka soo rida lacag kale inaad ku dirtid wax kale si iibsato ku asugu dalnay boqol احسنت حسن absolutely mid kale qodobka saddexaad waxa weeyaan gas fee uu ka qaadanaa lacagtaas adii lacag kale ma bixi kartid waxaan dantan waxa kugu qasbay inaad gas fee dhiibtid lacagtaas asaa qaadanaa hadda kugu kale Soomaaliya jira waxa jira oo qoraalay ku soo dhigaan hoosna linki ay ku soo dhigaan marka hamiya ka soo rida waxa ku leeyahay waxaan application kan dirsay waxaana heli lacag saana heli marka linki hadda ku dhufato gmail-kaada iyo password-kaada form aad buuxini gmail-ki password-kaada laga helo bas waa magtaan إنا لله وإنا إليه راجعون والله وصومالي ويه Soomaali way qaar Soomaaliya jirba waxay ku soo qoraan waxay ku leeyeen mashruuc noocan ahayna waxaan ku qabanaynaa saan faa'iidad keli marka linka hoos ku dhufay ku leeyeen linka marka ku dhufatid form ay ku soo bixinaa formka marka gmail-kaada iyo password-kaada gelini marka xogtaada saas ay ku helaan Soomaa halis waa marka arrinta waynu garanay in meesha tan khiyaana ka jirta oo dadka lagu dhacayo oo haddii aad ku aragtid trust wallet-kaaga koon aad iibsatay aad lacag yar ku iibsatay oo aad aragtid isagoo kumayaal loo bedelay wax weeye waxaa ka jirta khiyaano marka ka taxadara akoonadiina markasta ilaaliya wax kastaad ku aragtaana akoonadiina markasta ilaaliya laanno arrintan aad bay u farbadatay oo dad badan ayaa ii sheegay oo yidhi akoonadeeda waxaasoo kale waan ku aragnay marka insha allah arrintaa ka taxadara suuqa ka shaqaysa suuqana waa suuq xalaal aad u farbadan ku jirto marka taa dhinaca ka faa'iideysta insha Allah waxyaalaha iskaamka iyo waxyaalaha isku khiyaameeyo waxyaalaha markasta ka taxadara insha Allah ilaa intaan ku kulmi doono video kale iyo live kale oo Telegram-kan ka soo gallo oo walaalkiin Axmed Aadam oo idin leh hayaakum Allah wa iyaakum wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh